topic aan jecelahay maanta inaan kelmado kooban ka iraahdo waxa weeyaan Somaliland local government muhiimadda ay bulshada ugu fadhiyaan iyo doorka horumarineed ee ay qaranka iyo shacabka ku leedahay dawladda hoose oo shaqada loo igmaday ka soo baxda sababtaan u jecelaystay inaan topican ka hadlana waxa weeyaan dawlad marka la rabo in la dhiso ama la horumariyo waxa laga bilaabaa base-ka hoose from bottom to the up not from up to down. So I will divide my presentation today into three parts. Number one, what are the challenges and difficulties that made local government not to make a progress? Maxay yihiin caqabadaha iyo dhibaatooyinka haysta dawladaha hoose ee Somaliland ee ka hortaagan inay horumar sameeyaan? Number two, what makes local government great? Dawladaha hoose maxaa sharaf iyo karaamo u yeela markay maxay sameeyaan baase lama hadiya? Basically waa marka ay shaqadooda ka soo baxaan, simple as that. And number three, inaan isku dayno inaan jawaabo u helo su'aalo ay dad badan isweydiinayaan oo ay ka mid ka yihiin why we are in the condition that we are in today. I mean being under developing countries, a poor nation, far behind to the rest of the world, who is responsible for this and what can we do about it? So before I do that, aan warbixin yaro kooban idinka siiyo local government-igu waxa ay yihiin. Local government waxa la yiraahdaa waa maamul dawladeed hoose oo la wada leeyahay kaasoo ka hawlgala goob mucaayana sida degmo gobol ama tuulo dadka halkaasi ka hawlgalana ay yihiin dad laga soo dhex doorto bulshada halkaasi degan si kale hadaan u dhigo waa group of people and institutions ku midoobay mas'uuliyadda maamulnimo iyo tan horumarneed ee goobtaas. Somaliland waxa ka jira 13 gobol 81 degmo iyo 3500 oo staff registered on local government alone. Doorashadii ugu horeysay Somaliland waxay qabsoontay in December 2002 waxaana ku tartamay 6 xisbi siyaasadeed 10 sano kadib waxaa qabsoontay doorashadii labaad ee golayaasha deegaanka Somaliland oo iyadana mandate-keedu ahaa in 2017 shan bilood kadibna waxaa la rajeynayaa inay inoo qabsoonto doorashadii saddexaad ee golayaasha deegaanka Somaliland. Local government-iga Somaliland waxay u qaybsan yihiin grades grade A, B, C and D. Grade A waxa la isku yiraahdaa 6 gobol ee ugu horeysay Somaliland with 21 councillors each marka caasimadda Hargeysa laga reebo oo iyadu 25 xubnood haysata. Grade B 17 xubnood, grade C 13 xubnood and grade D they have no boundaries. They do not have elected councillors. They call temporary administrative district. Status-kooduna wali labada aqal ee Somaliland may approve kareen kamanaysan doodin. inta haddii aan uga gudbo qaabka loo doorto ama ay ku soo baxaan maamulka dawladaha hoose runtiina ah qaab ay cadaalad darro badan ka dhex muuqato waxa weeye horta local government-iga caalamku saddex nooc bay ku soo baxaan dawladaha democracy-ga ah. Number 1 inuu xisbiga soo list gareeyo candidates-ka uga qayb galaya doorashada golaha deegaanka. Number 2 inuu qofkan yahay qof independent ah oo aan xisbiya meel ka tirsanayn bulshada ka soo dhex baxay sidana doorashada ku yimid. Number 3 inuu qofkani ka socdo waxaan la isku yiraahdo local association-ka ururada bulshada NGO-yada ururada samafalka and so on. Inaga taynu markaa waa tan axsaabta dadkuna toos uma doortaan councillors-ka balse xisbiga ayay u maraan u codaynta shakhsiga. xisbi kastaana isaga ayaa soo list garaysta mudanayaasha iyo marwooyinka uga qayb galaya doorashada golaha deegaanka iyo tan baarlamaankaba. Haddaba sida dhacdan inta badan axsaabteenu kuma soo xushaan qofka competency-giisa sida qualification-kiisa, experience-giisa, personal skills-kiisa and good track record-ka uu bulshada ku dhex leeyahay. waayo qofkan hadduu hadhow soo baxo xisbiga uma shaqeynayo wuxuu ka hawlgalayaa goobtii iyo deegaankii looga codeeyay ee uu ka soo baxay. So you need to think about that. waxaa kaloo dhacday iyaduna inaan axsaabteenu muhiimad badan siinin qaybaha kala duwan ee bulshada si looga qayb galiyo doorashada golaha deegaanka iyo tan baarlamaankaba. sida dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxday ee aqoonta public administration-ka iyo good local governance-ga baratay dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay ee iyaguna aqoonta leh. bal waxay ku soo xushaan qofkani mujtamac intee leeg buu haystaa qabiil weyn ma ka dhashay ma isa soo saari karaa kharashaadkiisa ma wataa oo ma isfangarayn karaa.
si kale haddaan u dhigo doorashooyinkeena waxaad moodaa inay qabiil ku base garaysan yihiin qabiil iyo qof wada socda ayaa xisbi approach garaynaya waxbay isku waafaqayaan sidaana qofka waa loogu diiwaan gelinaya ama xisaabta ayaaba u kala tartanta oo u kala hordheeraysa qabiilada waaweyn ee dalka dega si kastaba ha u dhacdo marka u dambaysa xisbigu soo finalize gareeyo mudanayaasha iyo marwooyinka uga qaybgalaya doorashada golaha deegaanka iyo tan baarlamaankaba xisbigu ma soo bandhigo sharaxaad dheeriyana kama bixiyo what are the reasons and criteria they selected this person maxay yihiin sababaha uu qofkani ku mutaystay inuu noqdo musharaxa xisbiga arrinka cid isweydiisana ma jirto cid ka wada hadashana ma jirto bal candidatesku iyaga is campaign gareeya oo tuulooyinka iyo magaalooyinka waaweyn mara oo siyaasadooda iibiya waana sababta keentay in dad badan oo aan aqoon u lahayn positionkan ay u tartamayaan ay ku soo baxaan iyo dib u dhac baahsan ee hadhow ku habsada goobihii iyo deegaanka looga codeeyay ay ka soo baxeen